عالم الإسلامي وحيالها كدعياي لبدا الرأي مدنا كما دبقنا انت وهو خلاف انت انت وهو خلاف انت كوا بنيي الضوابط دي شروط كوا بنيينا لما رعسنا كوا الديدة مطلقا ديدين دوي بالديدين ساس دراد نينك ما انت اسقرحنا ياي الشيخ والله سعود علماء ان كهليو معتبرين تا ما جرت لان وحويان انت بدن waxa la sameeynay waxa ku baabaaya waa muslimiin saas ma wallahu a'lam tan kale oo ku saabsan arintan dhalinyarada qoraan uga hadlay salada ayada qoraan uga hadlay oo muxaadaraad uga jeedinay ani waxaan rumaysnahay inta qiraa'adayda saan muxaadarada hore ku sheegay nimanka dhalinyarada ah iyo nimanka la yiraahdo Daesh iyo inay usuushi khawaarijta tatbiiqinayaan aad baan u tafsiiliyay muxaadaradii hore ee khawaarijta iyo fikirkeeda iyo dadka ku ta'afuray halkaas aan ku faahfaahay waxaan rumaysnahay usuushi khawaarijta oo sideedii inay tatbiiqinayaan hadayna ka wadarinba bal waxaan rumaysnahay ururka al-qaa'ida asalkiisa wax badan oo mabaadi'diisa kamida in ay naz'a takfiiriya oo khuruuj iyo muruqa ku jiro waxaan la arkay aathartan soo baxbaxaysana ee la isradinahay nafta la isu keenayna waxa la isku khilaafay waa un qolo xadkii si dhaaftay mooyee laakiin waxyaalo fara badan oo usuul ah oo khaldan baa jirta sidaas daraadeed waxaan leeyahay jihaadku waa mas'alo jidka loo marano waa mas'alo jidka loo marana waa mas'alo waxaan rumaysnahay marka arintaas dhalinyaro yaan lagu baabi'in oo yaan lagu khaldan oo yaan naar la gali oo dhiig muslim adoo khaatumadii ugu dambaysa galay naar ha ku carray waligay wax ka dhiiran ma arkin oo waligay wax ka doqonsan ma arkin oo waligay wax ka aqli yar ma arkin nin intuu hadda ruux muslima dhiigiisa galo isla markiiba daqiiqdiiba naftu ka sii baxayso midka dilahay laakiin isla waad yara noolaan doontaa oo malaha waa toobad keeni doontaa waa ila roob laakiin hadduu dhimanaya dhiig muslimna ku khaatimaysanaya waligay wax igala dhiiran ma arkin marka arinta iyada aad looga taxadaro wallahu a'lam